wafdi ka kooban 9 maayir oo horkacayo maayirka caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa ayaa u boqolay degmada Ceergaafo ee xarunta gobolka Sanaag. Ujeedada safarkan maayirada ayaa ahayd shir ay ku leeyihiin degmada Ceergaafo maayirada 10ka degme ee ugu waaweyn Soomaaliland iyo u kuurgalida xaaladda wada la'aan ee ka jirta gobolka Sanaag. Intii lagu guda jiray safarka maayirada ayaa waxa duleedka magaalada Ceelafweyn gaari kula qalimay maayirka degmada Laascaanood inkastoo aanay jirin cid waxyeello ka soo gaadhay gaarigaasi intii aan waftigu gaadhin degmada Ceergaafo waxa ay ku hakadeen degmada Ceelafweyn iyaga oo halkaasi saxaafadda uga warbixiyay ujeedada socdaalkan maanta iyo waxa uu daaran yahay. ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay maayirka maayirada Soomaaliland Cabdiraxmaan Solteeko. waxaan ka soo jeednay magaalada Burco anagoo socdaalkayga deegaanka Ceelafweyn magayna gaari doonno insha Allah ma dhow Ceergaafo. maayirka degmada Saylac Xuseen Iidla Barkhadle, maayirka degmada Gabiley Shucayb Maxamed Muuse, maayirka degmada Boorama Saleebaan Xasan Xadi, maayirka degmada Berbera Cabdishakuur Cidin ayaa dhammaantood ka warbixiyay safarkan maanta ay ku marayaan gobolka Sanaag. alxamdulillah maayirada hadda waxaan u soconaa horta koow waa marka horeysa inaanu sabarno geesta Soomaaliland ilaa ka gees maayirada markaan daraasad ku sameynay dhibta jira siiba xagga wadooyinka maayirada Soomaaliland ee ku sii jeeday magaalada Ceergaafo. marka hore ujeedadayadu waxay ahayd aanu halka intaas oo kiiloomitir soo jaray aanu Ceergaafo shirkadii dawladaha hoose ugu qabsanaynay waxa weeye inaanu la dareeno baahida dhinaca wadooyinka ee Ceergaafo. waxaan dad badan oo maanta waxna la socday ay wadadan ku cusub tahay dhibaatada had iyo jeer laga sheekeeyaa ay maanta ay indhuhu ku arkeen iyo wadaxumada ka jirta. waad arkaysaa gawaadhida meeyirada wateen qaarkood inay jiifaan hadda ay hudmadeen dhaceen sababtuna waxa weeye wadaxumada ka jirta degmooyinka qaarkood. waxaan leenahay kaambeynka loogu jiro sidii wadada Ceergaafo loogu guntan lahaa hal la xoojiyo ayaan leenahay degmooyinka darifyadu markii uu waftigu ku dhawaaday magaala madaxda gobolka Sanaag ayaa waxa halkaasi kaga hor yimid dadweynaha ku dhaqan magaalada Ceergaafo halkaasi oo ay soo dhaweyn qiimo leh ay kala hor yimaadeen dadka ku dhaqan halkaasi. maayirka martida loo yahay mudane Ismaaciil Xaaji Nuur ayaa halkaasi ka soo jeediyay hadallo soo dhaweyn oo arkaysaan waxa umad joogta iyo waxa gawaari joogta waxa halkan lagu soo dhaweeyay 10 maayir oo maayirada dalka intii ugu waaweynayda. maayirka maayirada Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Solteeko ayaa u mahad celiyay dadweynaha reer Ceergaafo ee isa soo tubay wadooyinka magaalada iyo kuwa iyagu qoraxda u taagnaa sidii ay u soo dhaweyn lahaayeen waftigooda. anaadada ugu mahadnaqaya shacbigiisa fiican oo soo dhaweeyay haday tahay gaadiley haday tahay furtooley runtii halka waxaan u nimid inaanu ku qabsano shirkayagii aanan idla daheerna Ceergaafo dhibaatada badan ee haysata iyo xanuunka wadada soo martaan daakisay xildhibaanana la kaftamo wuxuu anagoo dhakiis ka soo bedelay oo soo nasnay u baadna aragtaana wadadan soo marnay eega. si kastaba ha ahaatee safarkan ayaa wuxuu ku soo dhammaaday jawi nabadgelyo ah iyadoo la filayo shirka maayiradu ay ku leeyihiin magaaladan Ceergaafo in uu bilaabmo maalinta Sabtida ee fooda inagu soo haysa. Waa Cali Xajar.